بسم الله الرحمن الرحيم. مدن نظام عندكيسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن محمد شيخ عثمان جواري قدوميها قلها شعبك قدوميه كحقيقة xildhibaanada sharafta leh oo horteyda fadhiya ciidamada qaranka bahda saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan haddana aad dhegaysateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 23 Febraayo 2017 ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan ogahay in xilkan yahay mid aad u culus una baahan karti hufnaan iyo daacadnimo. sharaf weyn ayay maanta ii tahay inaan hortiinna imaado si aan codkiinna kalsoonida idiin weydiisto idinkoo gudanaya waajibaadkiinna dastuuriga ah. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin aqoontayda heer waxbarasho iyo mid heer shaqo ahba waxaan ku kasbaday xirfado waayo aragnimo iyo khibrad dhan walba ah sida hoggaaminta dejinta miisaaniyadda iyo xirfado kale oo ku aadan wada tashi wada shaqayn isu tanaasul iyo dulqaad. sida qaarkiin ay og yihiin waxaan ka soo shaqeeyay hay'ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah waxaana ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo sanado badan u ololeynayay isku xirka bulshada Soomaaliyeed. in muddo ahba waxaan ku howlanaa arrimaha siyaasadda dalka oo aan wada shaqayn buuxda la lahaa madaxda dowladda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xildhibaanada wasiirada iyo ururada bulshada ee Soomaaliyeed. tani waxay ii sahli doontaa inaan sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba. waxaan fahamsanahay caqabadaha dalka ka jira waxaana haddii Ilaahay yiraahdo ku dadaali doonaa inaan caqabadahaas inagoo wadajir ah xal u helno annagoo kaashanayna allaha weyn iyo iimaankeenna madaxda qaranka uu ka mid yahay madaxweynaha guddoonka labada aqal dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. gurmadka abaaraha oo uu madaxweynuhu ka hadlay mar dhow sida aad la socotaan waxaa dalka ka jira abaaro ba'an oo soo jiitamaya in muddo ah kuwaasoo saameeyey malaayiin qoysas Soomaaliyeed ah. waxay halis ku yihiin abaarahani jiritaanka nolosha iyo dunyada dadka Soomaaliyeed. waajib ballaaran ayaa dhammaanteen inaga saaran shacabka iyo xukuumaddaba inaan si wadajir ah wax uga qabanno arrimaha abaaraha. maadaama aan sanado badan ka soo shaqeeyay arrimaha gargaarkana waxaan bilaabi doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo maalinta aad kalsoonida isiisaan inaan ka bilowno shaqo waafi ah oo la xiriira sida dadka Soomaaliyeed dhibka looga bixin lahaa. sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqeyno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aad u tabaalaysay dadka Soomaaliyeed isla markaana aan yarayno
wax walba oo keeni kara abaar dambe. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, Soomaalidu waxay ku maamaadaa far kaliya fool ma dhaqdo. waana ogahay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhammaan hay'adaha dawladda federaalka sida hay'adda fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka. waxaan idin ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo marka aad kalsoonida siisaan inaan bilaabi doono wada tashi dhinac walba leh si aan u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh. xukuumaddaydu waxay xoojin doontaa wada shaqaynta, iskaashiga iyo wax wada qabadka hay'adaha dawladda si looga maradhariyo kalsoonida shacabka ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay'adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. anigoo idin soo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya halkudhiggii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda dhibka looga bixin lahaa. sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqayno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aad u tabaalaysay dadka Soomaaliyeed, isla markaana aan yarayno wax walba oo keeni kara abaar dambe. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, Soomaalidu waxay ku maamaadaa far kaliya fool ma dhaqdo. waana ogahay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhammaan hay'adaha dawladda federaalka sida hay'adda fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka. waxaan idin ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo marka aad kalsoonida siisaan inaan bilaabi doono wada tashi dhinac walba leh si aan u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh. xukuumaddaydu waxay xoojin doontaa wada shaqaynta, iskaashiga iyo wax wada qabadka hay'adaha dawladda si looga maradhariyo kalsoonida shacabka ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay'adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. anigoo idin soo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya halkudhiggii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda. gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay, amniga, dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hagaajinta maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dalka, hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka, dhammaystirka dastuurka, xoojinta federaaleynta, hirgelinta asxaab siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka heer degmo, heer dowlad goboleed, heer federaal iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan diiradda saari doonaa dib u heshiisiin dhab ah, midnimo iyo xoojinta xiriirka maamulada dalka si loo hubiyo waxqabadka arrimaha aan soo sheegay. waxaan baarlamaanka sharafta leh hortooda ka ballan qaadayaa in aniga iyo xukuumaddayduba la imaan doonto dadaal, daacadnimo, karti, hufnaan ku salaysan isla xisaabtan dhab ah. si isla xisaabtankaasi uu haddaba dhab u noqdo, waxaan xaqiijin doonaa in xukuumaddaydu si joogto ah
وهرتماده قلها شعبك كان جوابته سؤالها يتبشد حلبانada sharafta leh arintani waxay noo suurto gelin doontaa daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhaqangal ah xilbaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin xukuumadda aan soo dhisi doono waa mid la imaanaysa maamul wanaag isla xisaabtan karti hufnaan iyo waxqabad dhammaystiran sida uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ballan qaaday waxaan dhaqan gelin doonaa mid nidaam hufan oo aan si adag ula dagaali doono falalka keeni kara musuqmaasuqa iyo maamul xumada waxaan ballan qaadi doonaa in qofkii lagu helo falal musuqmaasuq ah laga qaadi doono tallaabo sharci ah mana jiri doono haddii ilaahay yiraahdo shakhsi sharciga ka sarreeya taasna waxaad ka arki doontaan in dhammaan ummadoo dhami ay u sinaan doonto sharciga hortiisa iyadoo cidna aan looga heebaysan doonin xilka ama mansabka dawladeed ee uu dalka u hayo xukuumaddeeda waxaa haddii ilaahay yiraahdo halbeeg u noqon doona karti iyo hufnaan sidii halhayska u ahaan jirtay ra'iisul wasaarihii hore allah u naxariistay mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa hubaala in shacabka Soomaaliyeed ay gashay rajo wanaagsan oo keentay inay si buuxda u taageeraan dawladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo sidaas daraadeed waa inaan rajada shacabka ka dhabaynaa tusnaa waxqabad dhab ah oo isku haleyn karaan si loo hanto kalsoonida ay shacabku hayaan dawladooda xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin saxansaxada iyo neecawda xornimada buuxda oo ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed waa isbedel ku yimid rabitaankooda taasoo aad ka dheehan doontaan qaab dhismeedka iyo habdhaqanka xukuumadda aan soo dhisi doono iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaa xusid mudan in markii ugu horeysay taariikhdeena ay baarlamaankeena sharafta leh soo galeen dhalinyaradii iyo haweenkii ugu badnaa waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba 70 bulshadeena in waqtigoodii uu yimid sidaa daraadeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta amniga iyo horumarinta dalkeena dawladdeeduna waxay u sahli doontaa haddii ilaahay yiraahdo inay ka qayb qaataan sidaad ogtihiin haweenka Soomaaliyeed waxay laf dhabar u yihiin horukaca bulshadeena waxayna kaalin lama ilaawaan ah uga jiraan badbaadinta iyo horumarka shacabkeena sidaa daraadeed waxay mudan yihiin in kaalin mug leh ay ka qaataan hoggaanka iyo horumarinta waddankooda waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada labada aqal iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dalka oo ka soo qayb qaatay xukuumadii hore waxaan fursadan qaaliga uga faa'iideysanayaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka oo si hagar la'aan ah har iyo habeen ugu taagan difaaca dalka iyo dadkooda iyadoo aan qirayo inay si naftii hurannimo leh ay ugu dhabar adeegeen xaalado adag oo aysan naga mudnayn waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan geed dheer iyo mid gaabanba kulligeen u fuuli doono sidii ciidamada qaranku ay xaquuqdooda ugu heli lahaayeen si joogto ah waajibaadkoodana ay ugu gudan lahaayeen si gobonimo leh oo dadka Soomaaliyeed weligood lagu yaqaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dhammaan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii iyo xukuumadihii hore oo soo maray dalka oo soo gaarsiiyay maanta meesha aan taaganahay waxaan sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal oo udub dhaxaad u ah isbeddelkii taariikhiga ahaa ay dalbadeen shacabka Soomaaliyeed
waxaad ku ammaanan tihiin jawaabtii aad ka bixiseen rabitaanka iyo himilada shacabka waxaana hubaa xaqiijinta gaaridda himiladaas inay nagu rari doonto inaan si wada jir ah u wada meel marino una ansixino hindisha sharciyeedyada aasaasiga u ah horumarka iyo dib u dhiska dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyntii waxaan si xushmad qadarin iyo ixtiraam buuxda leh idinkaga codsanayaa inaad igu aamintaan xilkan culus ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aan waajibkayga dastuuriga ah u guto iyada oo aan wada tashi dheer kadib haddii ilaahay yiraahdo idin hor keeni doono barnaamijka xukuumadda iyo xubnaha aan u soo magacaabayo golaha wasiirada si aan u wada gudanno waajibaadkeena dastuuriga ah oo aan dalka ku gaarsiinayna xasilooni waarta iyo doorashooyin madax bannaan oo xor iyo xalaal ah mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiina siisaan waa mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq